tirada Soomaalida iska dhiibaysa wadamada Yurub ayaa korortay colaadda iyo qallaasaha siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya awgeed. Xog ka soo baxday hay'adda magangalyadoonka ee Midowga Yurub ayaa muujinaysa in koror uu ku yimid tirada Soomaalida codsanaysa magangalyada, iyadoo heerka oggolaansho uu hadda marayo 59%, taasoo muujinaysa sida aan cid walba loo aqbalayn. Intii u dhaxaysay Abriil 2023 ilaa Maarso sanadkan, ku dhowaad 38,000 oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa ka codsaday qaxootinimo wadamada Midowga Yurub. Jarmalka ayaa hogaaminaya qabashada codsiyadaas iyadoo uu diiwaan geliyey ilaa 12,000 oo codsi. Waxaa ku xiga Faransiiska oo qabtay 5,400 oo codsi. Giriiga ayaa qabtay ilaa 4,300 oo codsi. Netherland iyo Ireland ayaa qabtay min 2,600 kiiba. Warbixinadii ugu dambeeyay ee hay'adda magangalyadoonka ee Midowga Yurub waxay tilmaamayaan in weerarada sii kordhaya ee Al-Shabaab ay sabab weyn ka yihiin korarka dadka qaxootinimada isku dhiibaya. Khilaafaadka qabiilka iyo burburka siyaasadeedna ay sii hurinayaan qallaasaha, iyadoo shacabku, gaar ahaan haweenka, carruurta iyo wariyaashu ay ugu nugul yihiin tacadiyada. 38,000 oo Soomaali ah ayaa dalbaday codsiyo qaxootinimo. Waxaa helay jawaab ilaa 32,000. 16,000 oo kale ayaa weli sugaya ilaa bisha Agosto.